maalin wanaagsan saaxiibadan hawada ka saaxiibnay waa markaan wararkii warbixinada ugu xiisahay xamaasada badnaadaan oo kale Israac Media ka daawo jirtay waxa kamid ah xiisad beeleed xoogan oo ka tagan duleedka Cadale Soomaaliya oo martigelinaysa koobka bariga bartamaha Afrika golaha shacabka oo cod u qaadaya miisaaniyada 2019 wasiirka cadaaladda oo baaq u diray hay'adda garsoorka wararkaasi warar kala aadeen qarinana ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan hadduu abeedmo subscribe sar gambalelka kana furo si aad u hesho warar wixii ku dhaafay ama waxa minidka dhacaya wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye oo sheegtay in dhawaan lagu qaban doono magaalada Muqdisho koobka dalka bariga Afrika Khadiija Maxamed Diiriye ayaa shaaca ka qaaday in qorshahani ay ka warqabaan madaxda dalka horanta sanadkan cusubna Soomaaliya ay isku diyaarin doonto qabashada tartankaasi sidoo kale wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa tilmaamtay in tallaabadani ay guul u tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo ah taariikhduna ay ku beegan tahay 3 bisha 12 kulan kule xarunta golaha shacabka ajendaha kulanka shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ah codeynta miisaaniyada dawladda ee 2019 sidoo kale ajendaha xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa kamid ah codeynta xeer hoosaadka golaha iyo aqrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka nadaafadda ciidanka xildhibaanada golaha shacabka ayaa shalay ka dooday miisaaniyada dawladda sanadka 2019 iyadoo wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu xildhibaanada u faahfaahiyay qodobo qaar ah oo warbixin miisaaniyadeed ku wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliya Abukaate Xasan Xuseen Xaaji ayaa hay'adda garsoorka dalka ugu baaqay inay dib u eegis ku sameyso xaaladda maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee Xamar gaar ahaan kuwa loo haysto deymaha lacagaha Abukaate Xasan Xuseen Xaaji ayaa xusay in ay muhiim tahay in la garab istaago dadkaasi maadaama ay u xiran yihiin lacago yar oo laga bixin karo maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiga dalka ayaa inta badan dhibaatooyin xoogan la kulma kuwaas oo marmarka qaar loo geysto tacadiyo ka dhan ah bini'aadanimada xiisad beeleed xoogan ayaa looga soo waramayaa in ay saakay ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe xiisada oo u dhaxaysa beelo walaalo ah ayaa waxaa la sheegayaa in ay ka alalasan tahay deegaano u dhow deegaanada Cadale ee gobolkaasi gaashaanle sare Cali Xaashi Cabdalle oo ah taliyaha guutada afraad ee aaga degmada Cadale ayaa warbaahinta Israac Media u sheegay in ay jiraan xiisado halkaasi ka taagan isla markaana ay dhici karaan dagaalo haddii aan laga hortagin Cali Xaashi Cabdalle gaashaanle sare ayaa ugu baaqay in madaxweynaha Soomaaliya iyo kuwa Hirshabeelle in loo istaago wax ka qabashada colaadaasi